أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islam is the deen of ta'awun. Islam is the deen that we support each other. We give to each other, especially the indigent and the needy Muslim. It is farha, it is rahmah, it's mawaddah, it is tawasul from all partners of Prophet ﷺ is that you eat part of it, you give your neighbors, you give also your friends and the friends of your parents. marka hore ilaahay subhanahu wa ta'ala waa mahadsan allihii na soo gaarsiiyay kulligaan qiimaha iyo sharafta leh oo islaamnimada nagu hanuuniyay nagu barbaariyay noo kasbay inaan isugu nimaano garoonkan weyn ee xaafadda South B ee Nairobi West ay ku tukadeen MOW Allah mahadiisa kadib waxaan iyaguna mahad ballaaran u celinayaa walaalaha muslimiinta dhammaantood halkaan ku soo wada idan leeyahay walaalayaal dhammaantiinba muslimiinta meel kasta oo joogaan khaasatan ummadda Soomaaliyeed ciidukum mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal inta kadib walaalaha muslimiinta waa bishaara weyn oo maanta ay marayaan ciid al-adha oo is sharaf ah oo u tukadeen garoonkan weyn waxaana xusuus mudan in ay ciidan ama garoonkan mar waliba idin soo diyaariso idin qaban qaadiso dalada madaalista quraanka kariimka walaalayaal waxaan idin leeyahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha naga aqbalo amalka aan sameynayno cidda xanuunsanna ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaad ilaahay ha siiyo waxa kale oo leeyahay walaalaha muslimiinta ah adduunka dacaladiisa meel ay joogaan ciid ku iida farxad iyo reyn iyo barwaaqo iyo bashbash inta kadib waxa iyana xusuus mudan in la xusuusiyo walaalaha muslimiinta ma haboono xilliga ciidaha in la aado meelaha aan fiicnayn oo ciyaalka la geynayo oo haweenkii iyo caruurtii iyo dhalinyaradii ay wada aadayaan oo dadkii ikhtilaaf fara badan iyo ciyaaro iyo wax aan fiicnayn la samaynayo waxaan uga digayaa walaalaha muslimiinta amalkooda ayna iska burinin ha iska ilaaliyeeno meelaha akhlaaq darrada iyo fasahaadka faraha badan uu ka jiray inaysan aadin
oo ay meelaha muslimiinta ay ku ciidayaan ama goobaha asturan in la farxo oo la cayaaro diinteenna ma diidano waa maalin farax maalin farax weeye maalinta farax marka ma aha inaan la aadno meelaha ama goobaha akhlaaq darrada iyo fasaadka uu ka jiro into meelaha lagu dabaasho la isqaawiyo ragga iyo dumarka ay dhex galayaan in la iska ilaaliyo waxaan leeyahay walaalayaal farxad ku ciida taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal lillahi rabbil alamin thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muslimiinta waxaan leeyahay ciidukum mubaarak taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal si gaara inta luqadda aan ku hadlayo Soomaaliga ku hadasho ee Soomaalida ah walaalahanahay isku dhiiganahay ayaan si gooniya meel walba joogaan u salaamaya ilaahay waxaan u weydiinayaa subxaanahu wa tacaala in uu nabadgelyo iyo dowlad adag oo xoog badan oo cadaalad keento uu ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyo dowladda hadda jirtana uu ilaahay wadada saxda ah ku toosiyo dhiigan daadanayana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu inaga joojiyo waxaan leeyahay farxad ku ciida meel walba joogtaan kuweena dhibaataysan ilaahay dhibaatada ka bixiyo wixii muslimiina oo dhibaato haysa soo guudna ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu maanta dhibaatada ka bixiyo ciidanna ciideeda kale farxad iyo nabadgelyo ammaan uu ilaahay nagu gaarsiiyo maanta waxaa farxad inoo ah haddaanu nahay reer South Sea waxaan ku ciidnay garoonka weyn ee ciida aan marar badan ku ciidi jirnay MW Sports Club muslimiin aad u tiro badan oo rag iyo dumar bale iyo caruur iyo culimo iyo siyaasiyiin iyo noocyada kala duwan bulshada oo dhan ayaa nagala soo qayb galeen waxaa salaada jimcada salaada ciida labada ragcadood ciida waxaa na tujiyay Dr. Maxamed Sheekh Cusmaan oo wada garanaysaan ayaa na tujiyay culimo badanna meesha way joogaan waxaa si gaar ah looga hadlay maanta in muslimiinta tirakoobka dawladda ay sameynayso iyo isxaabinta si maaragtay xawli ah loogu soo baxo deegaanada muslimiinta ay degan yihiin lagu yaqaanona ay dib ugu laabtaan si ay tirada muslimiinta ee laga been sheego mar walba ay maaragtay xaqiiqadeeda iyo dhabteeda u soo baxdo marka maanta farxadaas ayaan ku ciidaynaa aad baa runtii tiradu u badan tahay waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan inta muuqayga magacayga garanayso salaam waxaan leeyahay ciidukum mubaarak